musalsalkeena duurjoogta kusoo dhawaada saaxiibayaal ugu horeyntii maalin wanaagsan waxaan idin rajaynayaa inaad fiican tihiin tan kale aan falanqeyno taxanaheena Yaabani sidaan hore idinkugu sheegay warbixin walba soo korodho waan idin soo gudbin doonaa haddaba saaxiibayaal taylarka ama goosgooska ayaa la soo daayay iyadoo weli la wado jiliinkeedii haddaba saaxiib macaan goosgooska waxaan ku arkaynaa arrin cajiib ah taasoo ah in uu dhici doono guurka Roya iyo Yaman Ali haddaba saaxiibayaal goosgooskan wuxuu ahaa famil aad u dhameystiran welibana isku faraxsan oo xaflad qurux badan dhiganayaan oo aad ay u faraxsan yihiin haddaba goosgooska dhamaadkiisa waxaan ku arkaynaa arrin la yaab leh oo murugo leh sida aan goosgoosyada hore baa ku soo arki jirnay yacni weligeena ma arkin goosgoos isaga dhan oo farxad uu ku dhameystiran yahay haddana sidaas oo kale waaye farxad ayuu ku bilaabanaya balse murug ayuu ku dhamaanaya murugta ku dhamaanaya idin leeyahayna waxay tahay in uu ku dhamaanayo oo la tusayo qabriga Roya haddaba Roya taxanaha waxaa la sheegayaa inay ka bixi doonto inkastoo aan lahaynin warbixin cad warbixin cad inkastoo aan lahaynin waan aragnaa inay caddahay in Roya qabrigeeda uu ku qoran yahay Roya uu dhagaxa uu saaran yahay laakiin ma caddayn karna inay dhab tahay iyo in ay riyo tahay waxaan rajaynayaa inay noqon doonto mid riyo ah laakiin waa sida warku u badan yahay warbixinada dhan ee soo xaganayaan in gabadhan Roya ay taxanaha macsalaameynayso wejigan kale ninkan lagu magacaabo Serhan haddaba Serhan goosgooskan hadeertan lasoo dhigay kumuusan jirin laakiin dad badan ayaa waxay u maleeyaan in uu Serhan dhimanayo balse ma ahan mid dhimanaya xataa kuwa taxanaha ku jiraan waxay u maleeyaan familka reer Soya Saylan waxay u maleeyaan Serhan inuu dhintay balse Serhan waa mid taxanaha ku sii jiraya seasonkan sababtoo ah wuu saxiixday inuu taxanaha ku sii jiri doono sidoo kalena saaxiibayaal ma ahan mid wanaagsan xumaantiisa ayaa hore u sii socon doonto waxaana la sheegayaa warbixinadu ay sheegayaan in Asiya iyo Yaman ay isku wajihi doonaan waji aad u xun yacni xaalad adag ee dhexmari doonta isaga iyo Yaman Ali waxaa jiro qof labaad oo taxanaha macsalaameyn doono yacni qoftan waa mid xaqiiq ah oo la wada og yahay maadaama aan aragnay in ay heshiis kala saxiixatay Elif taxanaha way macsalaameyn doontaa taxana kale ayay wadaa magaciisa naadeertan yacni ma aqaano balse shalatoo magaciisa waa u jeeday laakiin hadda ma xasuusto balse markaa ogaado taxanahaas kale wada magaciisa waa idin soo sheegi doonaa Roya horta dhimashadeeda lama hubo waxaa laga yaabaa in ay riyo tahay waa sidaan hore igu sheegay laakiin Elif waan huwa inay taxanaha macsalaameyn doonto haddaba saaxiib taxanahan waxaa jiro kala soocid yacni dadka ayaa la kala saaraya Elif way ka baxaysaa sidoo kale Roya waa sida la sheegay inay ka baxayso laakiin taxanahan sidaas oo kaliya ma ahaanayo waxaa noogu soo biiri doonaan dad cusub yacni dadna waa laga saaraya dadna way kusoo biirayaan waa sida aan hore idinkugu sheegay taxanaha waa la kala shaandheynayaa waxyaalaha kale ee cajiibka ah oo dhacaya taxanahan gudihiisa waxa ay tahay in la iibin doono gurigan reer Soya Saylan yacni Yaman Ali wuxuu waayay dhammaan qoyskiisa kadib dhimashada Roya waa sida xogta soo sheegayso Yaman Ali wuxuu weyn doonaa dhammaan qoyskiisa sidoo kalena nolol aad u adag ayaa soo wajihi doonto xataa heer waxaa la gaari doonaa gurigan reer Soya Saylan uu iib noqon doono sidoo kale saaxiibayaal dhacdo walba oo dhacaysan waxaa ka dambeeya waa ninka Serhan lagu magacaabo sida ay sheegayso warbixinta Serhan iyo Yaman Ali waa sida aniga xataa hore aan igu soo sheegay inay gali doonaan xaalad aad u adag yacni labadooda ayaa waxay noqon doonaan kuwa dagaalama haddaba waxaa ognahay in Yaman Ali mar walba uu noqon doono guuleystaha ayna familkiisa dhan dib ugu soo noqon doonaan taxanaheena waxaa kusoo biiri doonto Nergis Nergis iyo dad badan ayaa kusoo biiri doonaan haddaba Nergis ayaa ugu horeyso qoftan oo qaybta 7aad ayay soo gali doontaa sidoo kale Nergis waxay taxanaha ka dhigi doontaa ayaa la yiri saaxiibayaal mid ay kala bedeli doonto yacni markay ay soo gasho wax badan ayaa isbedeli doona yacni si lama filaan ay kusoo galaysaa dhammaan kuwa hadeertan taxanaha kusoo biiri doona waxaa la sheegayaa taxanaha inay wax badan ay ka bedeli doonaan si lama filaan ay kusoo gali doonaan haddaba saaxiibadeena qaaliga warbixinta ayaan kaga haynay taxanaha musalsalkeena Yaabani ama duurjoogta ama bahalka intaba sidaa u taqaanaan halkaas ay kusoo gabagabeynaya haddii ay tahay marka ugu horeysa aad channelkeena soo booqato fadlan subscribe noo saar like comment share intana dhiirigelinaya noo tahay haddii aad noo sameynaysid aad u mahadsan tahay haddaba muuqaalkiisa inta aan ku kulmin doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh